walaalayaal mahadsantihiin ugu horeyn waxaan halkaan uga mahadcelinayaa ugu horeyn waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurtageliyay inaan halkaan ku kulanno xafladda tan quruxda badan ee daahfurka madbacadda qaranka. mar labaad waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo madaxda qiimaha badan ee naga soo ajiibtay inay nagala soo qayb galaan xafladda furitaanka ee madbacadda qaranka. waxaan kaloo halkaan uga mahadcelinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkaan fadhiya sida dhalinyarada, haweenka, odayaasha, culimadiinka, bahda waxbarashada oo isugu jira iskuulada iyo jaamacadaha, ganacsatada sharafta badan ee hawlahoodii inoo soo baajiyay, bahda saxaafadda. walaalayaal anoo ku hadlaya magaca maamulka madbacadda qaran ee halkaan roll upkeeda iyo boorkeeda in kaga muuqdo, waxaan keennay mashiino casri ah oo daabacaya dhammaan waxyaabaha la xiriira digital technology. haddii aan wax yar idinkaga taabto shaqooyinka aan qabanayno, waxaa ka mid ah samaynta boorarka ifaya iyo kuwa aan ifin, sida koofiyadaha la sharaxo ama lagu dejiyo magaca, fanaanadaha, istaambada iyo loogooyinka, shahaado sharafta, roll upka, daboolidda ama sharaxaadda baabuurta, daabacidda buugaagta ganacsiga iyo kuwa akhriska, iyo dhammaan inta laga helo shirkad ka shaqaysa qurxinta iyo horumarinta ganacsiga oo aan halkaan kusoo koobi karin. waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda sharafta badan ee naga soo ajiibay xafladda tan quruxda badan ee aan doonayno inaan daahfurka xafladda qaranka. waxaan leeyahay mar labaad aad mahadsantihiin dadka kale ee dhalinyarada ah iyo dhammaan bahda waxbarashada iyo bahda saxaafadda iyo odayaasha dhaqanka sidoo kale waan u mahadcelinayaa. waxaan bulshada qaybaheeda kala duwan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan iyo xayeysiis qurux badan. insha allah waxaan idinku soo dhaweyn doonaa ama si toos idin soo dhaweyn doonaa macaamiil loogu talagalay ama loo tababaray adeegyadaas aan kor kusoo xusay, oo aan runtii ugu horeeyaan customer care-ka inay runtii macaamiisha qanciyaan. inkana waxaan rajeynayaa inaad nala shaqayn doontiin. waad mahadsantihiin walaalayaal. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. duqa degmada gaalkacyo mudane xisiis u barre sacabku waa xaggiin. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة تمرة عن الشيء أنا حبيت أحصل مظاهرة بطلع الجيران وكهوين عندما تنسى على الله وبركاته. بعد كنت وفرح سنة أنا كسر غير كمان هذه جرس وجرد الوصول واستيالنا قال كاي واحد يشتغل مرة بيك أديك بحياة أديك إنه إنسان كيرك ودجالنا يسمع واجد تسمع أديك سنة بحياة عدك المصنع كتبور مني جنبه حد واحد سواق زوجة في ما شاء الله من عمر ورايا تطور كم تاعي إن تذكر وترتم والسوق الشعب كعية له هذيك هذي عدك عارف يعني كانوا هذي هذي مالك فرد عسين ويكون معنا وأنا سيدا أجيله كل سنتين. مركا هذه المرسول دوينا دميرة فكر كان كنتي. هذه كده نوع أنا يلا بديو ماشي لما قاليه كنت تذكر واحد السنة ساعة. إن مارك أي دجان كود ليه وقت منكم ماشي مالك إشتو هيكون مجنون ساعة إنه دجان كيس الربيع تمام. لكن نك العكس أمور وإنه هالكان قليو وحمر يمد كشي سلاله حس مالك تدرك وحول موتر. تستعجل نحس يعني كان ماشان كانتو كان بأنفع الساعة دهان كان أنفع الساعة كور مرايا كانوا مروا بواسطة هذه كده بصور كرة مجرد والوقت تمام يقول وشعب ما الدنيا المصالح وهكذا كل شيء ممكن عادي بنروح ولا مستحاول سوينا يا مرة بالليلة ده حال فرصة كده نبض وعليش بنتي وياهن وقع على بعض على هبع على الجيران waxaan dhalinyaradu inay u istaagaan nabadda lagama maarmo. 2 sano joognaa alxamdulillaah rabbil caalamiin. iskuuladeena lama xirin, gabdhaheena iyo hooyooyinkan ma qaxin.
wanaagga ay leedahay nabaddu waa inaan dareennaa wax ka fiican oo lagu doorsan karaa ma jirto marka in nabaddii sidii looga shaqeeyo la isgaarsiiyo la isbaraarujiyo maalmahan coladaa dhacaya iyadana waa codsanaya aad iyo aad baa umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت لي هذا كلمة هاي بوقت بس كبورنا من كبوي ما أنت دور كي مبارك وهذا ترى على صوب كل ما حفلات التل مثلا قدوميها هم ما يركب مجال هي قبيلة كدونا ملاحظة ماشي فريدة هي اللي هذا حفلة يويل البا يزولين تله قيبة كدونا لما أنت معكم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رامش كتير كانوا جودجلي أنا بروح دينا يختار بروح ديسة يترتك الجراسية يهلرانت كسوق الجلدة يتجناش يحرقها وحكينا حويلا نبض مرة بدن بان لا يعني ما نشري قال كعيو ولا والورسي هاي وتذكر الأهلين هاي وتذكر البورصة كانت هاي وتذكر الدايرين هاي وتذكر البقعة هاي عربي لكن لو يسوون دبيسي صدق بلاد ويران من البرمجة على سوق الماء ترتن يترتن البحنمة فرحات نبض إلهي سيدي الله حضرتين على هذا بعمها صوت أسبوع هذا حشد وين كسر مجال كدر بسيني حتى لو نضطك وأسلطتك حلا هاي إلهي كلا قوي هذا قلب ذوقنا هنا على التاسي أنت تطورت هذا حسود دينا إنه قيب قادنه لكن بالشو البحر وحلوقة أن اللي هذا فرعون اللي هذا قبل كمدو لبض قيبات والله صعدا ووي هاي ما يركو نبدأ نقول ذلك شيء حتى لو يكون قرب قلنا نبدأ شو استاجا أنا كبر خيلنا نبدأ شو استاجا كبر خيلنا أنا وصل لقضاء جلاسيجا قرنشت هدي أو ماركتي سواليجا جاش برا مرمري سواليجا داقل دار هذا جلاسي مجال حجري جتي إسلام تمركو قدو كل جيل عد كلا واحد قدامه افتهانات بهذا marka timir waagu ruux lagu geli jiray oo dadka aniga iga weyn ay arki jireen timir ku jirta caw taqaan Soomaa waa dirmada hadda ka sac lagu keenaa marka cawda eesas u wartaa dadna way codayeen waxay tana ma u kala waray oday baa timir leeyahay dadna ma u kala waray in baa la yaqaanaa mugta timirtii ilaa ma u kala waray ay ka dhamaato timirta la gadan maayo markii dambu timirta miduu soo qaatay ayuu raacay xushoodsiye moogta ma dhaxdigay maalintii iska laalaada marka awal maxaa jooga wax soo wari jiray shirkadii hore sanjad day ma u kala waray ay ahayd waxaa galabta ay fureen la ma dhaxdigay marka ganacsigu sidaas ku fiican yahay waa isweeshanayaan runtii waad ogtihiin oo dee ganacsiga qurxooni kamiliito jaadka kamiliito jaadka waa gabdhaha jaadka iyo gada iyo dadka gada dhinacyada isku hayaan waxna kama qasaaran sababtoo waa isdugsanayaan wuuna isbixinayaa wuuna lacag yar noqonaya laakiin dee haddaad keligaa iska noqoto ama laba iska yaro noqotaan xanka ay ku badanayo xitaa haddaad daacatiin marka gaabtay gaalkay wax badan oo soo kordhay waa soo dhaweynaynaa وحويان الدنيا تقول سوق شاقي مصورة كلا كم مغل أو مصورة الجمود باكم مغل أو ما هذا الجمود باكم مغل عن سلا هذا شو اللي بهاي ورومرك هذا كم مغلنا وأصل كنا بخرا أو نحن كنا بخرا نوض إن كبخين هل أوجال وحويان أنت النهارده جالس غيرها يفرق النص مثلا قال حاجه يفرق كنت اقول سودي وقلتي واي تطلع قال حاجه والله نعم وفر احسن وانسحمني لبا سنه الله هذا موجود الى السين لكن هذا المبدا ما اعرف اي حد يجي شباب بقى اي حق قبطان لها هاي نود اساسا نقطه
barasho wanaagsan aniga wasiir farag la yiraahdaa ayaama xamaran jiray awal kusooreeba joog agwaagayana intaan joogi jiray haatan inaan wada joognaa ka shaqeynayna nabadaana u imid nabadaana ka wada shaqeynayna waana iskaashanaynaa xafladuna waxaan is leeyahay maadaama aan u mufulweynahay anaa xiraayo waxay noogu xiraanaysaa sanjed iyo qaranjed oo ah ma u kala waray ma dhexdhig aad bay kasoo qaybgalayaasha xafladan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan aad ugu faraxsannahay shirkaddan cusub ee qaranjad inay kusoo biirto deegaanka waana loo baahan yahay in la helo ganacsi cusub oo soo kordhinaya wax cusub oo looga baahan yahay deegaanka waxaan filayaa markii ay shaqadan bilaabayeen inay ku bilaabatay markay arkeen baahi loo baahan yahay inay maaragtay ka jirto waxaan bogaadinayaa ama aan ku dhiirigelinayaa inay wax cusub soo kordhiyaan sababtoo ah horey shirkado daawacaad way u jireen laakiin waxaa loo baahan yahay wixii hore wax ka gedisan ama wax shirkadaha hore aysan haynin inay soo kordhiyaan ayaan filayaa guud ahaanna waan soo dhaweynaynaa haddaan bahda waxbarashada nahay waxyaabo badan oo loo baahnaa ayaa jira oo aan la talintooda siin doono markii loo baahdo hadduu ilaahayna waxaan rajaynayaa dhowr iyo 10 sano u dambeysay horumar badan ku tallaabsatay markastoo ganacsi tartana u furmo ama waxyaabihii ku adkaa magaalada in la helo duruuriyaadka ahaa markastoo ay sii kordhayeen waxaa imaanaya horumar dhinac kasta ah waxaan ognahay in iskuullada markii ugu horreysay ay ku yaraayeen dhowr iyo 10 sano ka hor markii gooyihii waxbarashada ay bateen waxaa soo baxay dad badan oo waxbartay dadkii waa ku dhiiradeen inay waxbartaan gooyihii ganacsiga oo koobnaa dhowrkii sano u dambeysay isbeddel badan baa ku yimid marka bulshadana aad bay dan ugu jirtaa in tartan ganacsi uu furmo oo qof kasta uu soo bandhigo waxayo iyo tayadooda maayarka degmada iyo maamulka degmadan aad iyo aad baan u mahad celinaynaa sida markasta ay u dhiirigeliyaan goobaha ganacsiga shirarka dhalinyarada shaqooyinkii waxyaabo kastoo bulshada uga baahato siir axmed shire lagle isna aad iyo aad baan u mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiisii sida uu dhiirigeliyo dhalinyarada iyo qof kastoo markaasi uga baahda inuu dhiirigeliyo marka ugu horeysa waxaa maadale haddii noo suurtagelin halkan sugan maano marka xigta waxaan salaamayaa wasiirka iyo toqodobada gaalkacyo iyo dhammaan dhalinyarada halkan ku sugan sida odayaal ma jeeda waxaan ujeedaa dhalinyaro wax meesha fadhisa aan codkooda ku hadlayo waxaan sidoo kale salaamayaa kambaniga ama shirkadda qaranjed waxaan leenahay kusoo dhawaada deegaankiina waana loo baahan yahay mar walba in maaragta deegaanka la maalgashto dhalinyarada maaragtay ama Nairobi ha noqoto ama meelahaas kale maalgashto in deegaanka